barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo sidoo kale maayirka golaha deegaanka ee degmada Saylac Saacad Daahir Cige ayaa waxa ay fariin u direen guud ahaan shacabka ku kala dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salal iyagoona ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan isla markaasna ay muujiyaan xuduudda shacabka ku dhaqan deegaanada gobolada Awdal iyo Salal sidoo kale barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo sidoo kale golaha deegaanka isla markaasna hogaaminaya maayirka golaha deegaanka ee degmada Saylac Saacad Daahir Cige ayaa waxa ay komishanka qaranka Soomaaliland ugu baaqeen inay jiraan goobo badan oo la geeyay sanaaduuqda isla markaasna komishanka qaranka Soomaaliland ay ka codsanayaan in goobahaasi la geeyo diiwaan gelinta si ay u helaan dadweynaha ku dhaqan goobahaasi waxaana hadaladoodii kamid ah sida tan dadweynaha ku dhaqan gobolkan Salal inay isdiiwaan geliyaan komishanka doorashooyinka waxaan u diraynaa oo baaq ah waxa jira meelo aanan la geeynin sanaaduuq oo caan ah oo magaalooyin ah oo waaweyn oo la yaqaano sida laanta Maroxda oo ceel weyn oo magaalo ah Madaxdaley oo magaalo weyn ah leen Xuseen Kalabayd iyo gargaar galbeed inta oo magaalooyin ah waxaan komishankana leenahay war dhulkaas oo maalmihii hore berigii hore intii ka dabaysa cidiba ayna soo eegin waxaan leenahay war dadka hal la diiwaan galiyo oo xaqooda hal la siiyo dhul isgool leh ceelal leh arada reeru degaan leh oo anan goob doorasho u dhaweyn ayuu ka maran yahay waxaan leenahay hal lagu saleeyo meel kastoo dad joogaba oo hal la geeyo hilowle raari kabaalqabad geella goodirre intaayna waa bilaa sanduuq meel magaalo u dhawina ma jirto deegaankan gobolka Salal gaar ahaan degmada Saylac wadada xoolo dhaqataa 80% waxaan leenahay waqtigii hore diiwaangelintu ay timiday abaaro baan baa jiray dadku way qululeen imika fursadda inay ka faa'iideystaan dadkan hore u qaadan gaar ahaan dadka reer miyigu inay goobaha diiwaangelinta yimaadaan shaqaalaha hawsha ku shaqalana waxaan leenahay inay dadka u samraan waqti siiyaan oo ay hawsha dadka reer miyiga ay tilmaamaan dhammaan degmada Saylac iyo gobolka Salal dadka ku nool inay ka faa'iideystaan afarta cisho dadka xuduudaha jooga iyo dadka wixii ka baxsayna ha yimaadaan waxa isdiiwaan geliyaan waa tartan maanta xagga muxuu ahaay degmada hadba maanta inta niga diiwaan gelisa waxaynu gobol ahaan muxuu ahaay lagu qiimeyn doonaa waxaan lagu qiimeyn doonaa waxa weey diiwaan gelintani waa qiimeyn weeyi waa gobolkeena lagu qiimeynaya degmadeena lagu qiimeynaya waxaan leenahay ka faa'iideysta diiwaan geliya soo sheegay goobo badan baa jira oo xildhibaankii hore sheegay goobaha uu soo sheegay xildhibaankana waxaan leenahay komishanka qaranka il gaar ah lagu eego waa meelaha dadku ugu badan yihiin ay dadku degan yihiin meelo waxa la geeyay ana deganina waa lagu qoray meelihii dadku deganaayeen wax sanaaduuqa laguma qorin waxaan leenahay arintaana komishanka ha u noqdo kormeer ha u soo diro ha eego ha qiimeeyo haddii meeshu mudan tahay in la dhigo sanduuq ha la dhigo marka waxaan rajaynayaa dadku inay kaarka qaataan iyagoo isku duuban oo gobol ahaaneed wax badan bay noo taraysaa kow gobolnimadeena kor u qaadaysaa tirada maanta codkaan ka soo baxda waxaan aaminsanahay gobolkan inuu yahay gobolka labaad ee baaxad iyo xajmi ceerigaaba soo raac gobolka Sanaag inuu gobolka Salal yahay oo population badan ku nool yahay laakiin ayna marka hore isdiiwaan gelin maanta waxaan u baahanahay inaynu cadayno gobolnimadeennii si aynu helno xuquuqdii aynu lahayn ee aynu gobolnimo u lahayn ummadda gobolka markaa waxaan leeyahay aynu ka faa'iideysana Janiska aynu kula tartamayno gobolada kale waayo gobol ahaan dhaqaale ahaan waynu fiicannahay dad ahaan waynu badannahay sabab kaliya inaga hor taagan in gobolnimadeena soo degdegto waxa kamid ah tirada codadka maanta inta aynu helno ayaynu berri toole ku korkortamaynaa oo aynu ku doonanaynaa gobolnimadeennii si baarlamaanku ansixiyo marka waxaan leeyahay ummadda iyagoo isku duuban oo midah oo walaala ah dhammaan goob doorashooyinka la dhigay aad bay u yiri kulley 25 sanduuq baa yaala gobolka Salal gaar ahaan degmada Saylac 25 ka sanduuq waxaan u baahanahay horta inaan ka faa'iideysano oo maanta intii noogu kordhi kartaaba ay noogu korodho sanduuq kasta de capacity uu qaadi karaya inta laga gaaro 25 ka sanduuq waxaan u baahanahay inaan markii ugu yarnahay 100 kun cod ku ridno oo markii ugu yarnahay gobol ahaaneed
aynu ku dadaalno inagoo isku duuban si aynu noqonno ummad wax dooni karta waxna diidi karta wax dooran karta waxna diidi karta codkeena lagu xisaabtamo sida gobolada qaarkood dhammaan shaqaalaweynaha ka howlgeli doona diiwaangelinta waxaanu ka codsanaynaa gobolkan xaaladiisu way adag tahay waa gobol duruufo kala fog leh waa gobol ay dadku meelo kala fog ka imanayaan waxa loo baahan yahay in loo fudeeyo qofka shaqada waa Cali Axmed Yiriye Cali Dhagadrol wararka badda cas TV magaalada Saylac.